إلى يذكروا أنه غير أساسية صدق الله وعطسنا إن الله قد وفته تكوات ذلك دايما نقولنا يجي وعوداتي يجي أو ياشي وعوداتي على أن كان بقولك وتضبات كنيستي سان وحكولنا تا إن الله تحقريه أن الله قد وفته ودورنا طلبات ولقي عدو ما الناصور راعي وهو أديك نيدلك ولقي عدو كسود وما الناصور راعي تصدحات وحانو تاجنا هي مرور بمن مديس يود تركيس يراد كورو يهي وحول أحاشيس صدح لا هل هذا غير أساسين هي هنلو قدوة الجمال ما أنت إن شاء الله تعالى جمال شرحي ما يوساحبك يوحقبتك سوى شرحي وانك دليل رضا وانك اقويهانك وانك تراك ريكورد وعن له waxaad ku garanaysaan intii awsan imaan wadanka afartiisa koono waa looga dabaaldegay casuumada looga dhigay waa laga soo dhaweeyay nin Soomaaliyeed oo musharaxa oo dhul sida u kala duwan oo beero sida u kala duwan ay ku kala nool yihiin oo saa looga soo dhaweeyay ma jiro marka taa waxa weey in uu Soomaali yahay oo wax qabadkiisu u dhamaan umada Soomaaliyeed wada gaarsiisan yahay yaad ku garanaysaan hadda loogu doorto insha Allah taala halkan ragga fadhiya sidii uu sheegay aadan cod bixin maysan oo maanta food ma jiro oo idin ma lihin loo codeey laakiin waxaanu idin leenahay wiilkii muxuu hooyo aabihi ku yiri aaba waxaan adna wax ku yeeray anna wax itaraya hooyo ay ugu dhex wiilka haruubka loo buuxiyo wadnimanka halla doorta sanad Soomaalina iga gaarsiiyay insha Allah taala mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadinayna soo qaybgalka iyo soo dhaweynta iyo aqbalaada naga aqbasheen iyo nala soo gudbisaan musharax madaxweyne waa ka cudur daaranaynaa dilay haduu yimid السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وياي قرأت كل كلمة ونسيي فرينتاس waxaan rajaynaynaa in ay wada anfacday garaadku khayr la siiyo wuxuu idin la garnaqsaday wuxuu ina xasuusiyay gabayga caruudheexi ahaa ana idinku garleh geel ay ugu siiyay caruudheexu geel marka laga dhacay 14 qodob buu tiriyay niman abtiyaalna oo ah xididna ay yihiin walaalana la ah ayuu la garnaqsanayay marka annaguna waxaan ku leenahay annaga idinku garleh bashiir nala doorta aad iyo aad baad mahadsantihiin garaadku wuxuu inoo furay dhaqankii Soomaaliyeed oo meeshan ku dhan marka waxaynu ku qasbannahay inaynu siyaasiyiinta dibdegana ee dhaqanka aynu israacsano siyaasiyiinta waxa inoogu culus oo inoo bilaabi doona hadalka siyaasiyiinta Professor Dalxa dhaqanka ayaynu israacsanaynaa sida uu ixtiraamku inoo dhigayo waxaynu u yeedhaynaa si xushmad leh ila soo dhaweeya oo qaali ah imaam Umar Macallin imaamka ha ila soo dhaweeyo imaamka sideedan ha ila soo dhaweeyo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو هوري وحا مهد اسكاله الله رب العالمين مركا لبادنا حفلتان قروح بدن خيمي بدن مسؤولية دولة نمط إسلام نمط وولالت نمط أي كل هانتاي dadkii soo qaban qaabiyay oo ka soo shaqeeyana waxaan leenahay waa mahad celinayna intaas kadib garaad jaamac oo aan saaxiibo dhownahay kana mida sidii loo sheegay dhaqanka tirarkiisa Soomaaliyeed wuxuu yiri hana la soo dhaweeyo
musharax madaxweyne bashiir xaaji jaamac cali maaduu garaad jaamac yidhi dadku sibay iskugu xiran yihiin siyaasiyiintuna sibay iskugu xiran yihiin dhaqanka soomaaliyeedna sibuu iskugu xiran yahay annagu hadda inteena maanta dhaqanka oo meeshaan iskugu timid garaad jaamac warkiisaan qaadanaynaa garaadka warkiisaanan qadarinaynaa waana khayr iyo xugun soomaalida u yaalla soo dhowaaw musharax madaxweyne mister bashiir innaga oo maaragtay garaad jaamac warkiisa qaadanayna waxaan soo dhoweynaynaa musharax madaxweyne bashiir xaaji jamaal cali soo dhowaaw walaaltinimo ku soo dhowaaw islaamnimo ku soo dhowaaw mudnaan aad mudan tahay dalka soomaaliyeed haddii ilaahay kuwa caleema saaro guddoonkiisa iyo taladiisa ku soo dhowaaw intaas kadib maraba laftirkii warka inaan badiyo dad waaweynaa fadhiyo miisaan leh haddii laakiin la abtirsado oo gobannimada iyo dowladnimada iyo gunka cararka ama gunnimo ka cararka lagu abtirsado innaguba dadkii cabdullaahi ciise maxamuud ka soo jeedaan marka intaas garaad jaamacaan leeyahay garaad jaamac innaguna dadkii waxaan nahay calankan iyo xorriyaddan iyo dowladnimadan soomaaliya united nationka ka dhex keenay oo iyadoo soomaali isku duuban kuubka ah waxaanu nahay dadkii markii 2000 carta cabdiqaasim salaax xasan madaxweynaha laga dhigay garaad jaamac nimankii ra'iisul wasaaraha kaa dhigaan ee soo dhowaa naga dhexeeya waa musharax madaxweyne bashiir salaadiinta malaaqyada siyaasiyiinta baarlamaanka barofesoorada bulshada oo dhan marti sharafta waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaan markaan ka gudbo intaanan dulucda hadalka u gelin waxaan jeclaa inuu joogo iimaankii fadhiyo laakiin wuu tegey waa nasiib daro wuxuu yidhi abaal baanu adin siinay abaal koonfurina siisay ma jira waxaanu lahayn baanu mar wax yar ka qaadanay waxay aanu lahayn baanu wax yar ka qaadanay waxaad moodaa hashii maandeeqooyna ka dhaxaysay inaannu marti ku noqonnay oo laba ra'iisul wasaare maxamed ibraahim cigaal iyo allah u naxariistay khalif galay baa midba mar qabtay waxaad moodaa inay tahay wax nala siiyay oo naloo bariyey laakiin waxa allowdeen inaynu wax wada leenahay waxaan rabnaa anigu ma ihin dadka soo dhoweynaya musharaxa waxaan ahay dadka xilka doonaya oo musharaxu metelayaan ka mid ahay waxaan rabnaa ilaa waqtigii la isu soo noqday carta halkan waxaanu ka ahayn suge waxaanu sugayna in soomaali aanu isu keenno aanu midayno u dhabaradayno ayaanu sugaynay waa isu keenna ilaah mahadi laakiin maanta waa dardaarmaynaa musharaxaasaanu wadanaa waxaanu ku wadanaa reer waqooyi waxaanu ku wadanaa somalilan haddaad doonaysaan midnimadii inay soo noqoto kaasaa la qaadayaa rag iyo dumar isu sheega siyaasiyiin xildhibaano madaxweyneyaal guddoomiye baarlamaan brofesor dalxa waxaad naga gaadhsiisaa reer koonfureed maantaynu kala go'aynaa nahayaddii u dambaysay weey waa dardaaran wax la yooday wuxuu cunaana waa dhuuni wuxuu yidhaahdaana waa dardaaran
hal aynu wada leenahay 61 sano maalayse maanta sii maali maysaan walay ka tahay haba ku tashanina inaanu calanka geestayada jaranno oo taayada boorka ka hufno oo garajaamacna aanu kaxayno iyo inaad doorataan madaxweynaha oo aynu isku soo noqonno labadaasay ma joogtaa ku tashada qof kastoo jooga reer koonfureed oo ku tasho cidda idiin soo baxda u sheega kuwa musharaxiinta hadda doonaya u sheega kuwa madaxweynayaasha u tartamaya u sheega ma qabanayaan codna siin mayno 80 xildhibaan baanu leenahay haddaanu reer waqooyi nahay hal qof naga codayn maayo hal qof haddaanu isaga la dooran waana tegaynaa salaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وشفيعه خاتم الأنبياء والمرسلين وبعد قال الله تعالى في محكم تنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد مركور من تسلامي dhaqanka oo lamba afkoodanka weerow garaad malaaq suldaan wabar nabadoon islaam iyo intaan hilmaam lan walba magaashay iyo mansabshay ka salaamay may kala salaamay siyaasiyiinta anka horeeya professor dalx may salaamay gabdho sharafta leh xafladun qiimaha badan oo laka irtigi odayaasha dhaqanka anka horeeya garaadka ku qiib galeen isagana maysan lahaa intiin ka salaamantiin بعد السلام تانا دون قالنا my teacher in the hall معلم كان الانجليز كهاي بريا انت كجارة هو بيديها يسوي ينفسح لما دوها كور معلم يوسف إن هذا ينفسح على أربعة وفسح على زمان بارك الله فيك أنا سليبة ميك دوهي مقاري علي برتي ما هيك قاعدة دسوق دون إن ريولة كل يسوي markii aan haanaga maadaama macallinkii fasaxay garaadka anta ma ku jeesday su'aalna inay 3 qodob wal halnaysiyo salaadiin badan hadalii anina jidkiyo maray ma fantaraw laakiin su'aalo warsaday oo saf maamay ka saw oo ka saanay maadiga ku warsaday garaad afaan ma taqaana ha insha Allah may faday master Jamal lamadiis wal nagada dhaqanka hilmaamo waa masamadiis wal nagada lan dhaqanka meel ka ogaado intaas ay ku jawaabtay midaas dooyi kale barakallahu fi waa bula qaadni markaas daskii la qaadni aan oo ka hadalaw magaca odayaasha dhaqanka gaar ahaan koonfur galbeed ahana afayeenka odayaasha dhaqanka gobolka Baay maylena master Jamal hooba wala usu weydiyo khayranka jara an du'aayane waana gaaban master Jamal bin aadan ka hoob wanaga afar shalbe lan ko hadda ka hor afar bilan oo kawaan iyaga oo isuna kawaan leeyahay hilba kadaay reed oo gooy kiili ben gooy widaadama eray bakar soy tankala kiilisiye banin kari tankala kiilisiye bain kari tankala kiilisiye ban kari eray kin shabda kama dunduuna gaamiye tankar soy la raw walaasha iyada karsaas madi wala hawali intii oo simad baharin toon la baasa awlaadi aw ka marag le aragay ma soo ma baragay
tanma hilibki madun banin kari leeraw hilibkii dabka saarasa kariyaasa awki i awlaade i iyaba isla aamayana maasha allah walaahi war isla aamay agabe tan oo in kari leeraw walaahi kariyaas kala wayaas mas kalaan kalaas awlaade iyaba siyaasad dogaleesiyaas tona madun dogan kariyaas to iya karsaas to awlaadan kalaas to wada kariyaas hobanin wada kariyaasa haka dhawaayan hadalkii agaabiye ana naftarkay dadku wala falaaki jaray laakiin xafladda dhabtay wala ana falaw ma sheegada laakiin markii ballan qaaday hoob ilaahay odayaasha dhaqanka oo aan infiitada anjeeyay inta sheeni odayaalkii ergida xulaayeen oo xildhibaanada sheenayo odayaalkaas may ballan qaaday hoob ilaahay karaan nagada 77 xildhibaan koonfur galbeed nus ini ana sheeno kor hoob ilaahay الماوي مدي أريالك هذا فوت جراب معنا صور بقلة وأنا سلامتو أديو سدوا هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كذا ما سنتي حفلة قيمة قبلا وما تعال كان إنه قرصونتي وأنكسو روين أمكم ماموسينو المرشح بشير حاج علي جمال bahda dhaqanka labada qaybood gariyo guddoon siyaasiyiinta labada aqal inta ka joogta dhallinyarada iyo haweenka bulshada qaybaheeda kala duwan oo halkan maanta ku casuman assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib qiimo weyn bay noo tahay inaan ka soo qayb gallo مرشح بشير وهالكان إنه مرتي قاضي ربنا إنه صوبا لجو أهداف يوجد كوكلية في الصومالية إنه رجان كذا كقيب قاطع أما أترتمو المهمة وين بينولا هايرونتي إن سيدا تروكله ليسوي ماذا الصومالي ملكسو يجوك يسوي تماتو fariinta ay meesha ka qaadaysaana ay noqoto sida kuwii hore aan u dhegaysanayno hadda garaadkii iyo imaamkii way wada hadleen oo inay wada shaqeeyaan bay ku wada hadleen hore inay u wada shaqeeyeen haddana ay wada shaqeynayaan annaguna insha allah waxaan rajaynaynaa maadaama aan u baahannahay dowladnimo maadaama aan u baahannahay in dalku dhammaanba uu isku xirmo hal dowlad iyo hal qaran aan ka wada turjunno dadka Soomaaliyeed ee heshiiyaan isdhex maraan wada ganacsadaan dowladnimadeeda ka wada shaqeeyaan dowladnimadooda aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa waa bogaadinaynaa arrimaha uu soo bandhigay ee 5 qodobna waa 5 qodob ay u dhimanayso Soomaaliya waxay u baahan tahay dib u heshiisiin iyo dowladnimada ay rabto in ay ka wada hadasho hadda wax la haysto anigoo hadda waxyaalaha cajiibka waxaa ka mid ah 30 sano beelbeel baa loo fadhiyaa beelbeel baa loo fadhiyaa beelbeelna waxba tari mayso waxaa la rabaa wax la isku darsaday dowladnimo la isku darsaday oo laga wada shaqeeyo qof kastina uu kaalintiisa ka qaato maxaa yeelay waxaan wadaagno baa yaal meesha waxa keenaysu keenay baa yaal baahida taal baa beenu ognahay runtii aniga oo xuqaasha Soomaaliyeed iyo dhaqanka Soomaaliyeedba ka mid oo metelaya waxaan leeyahay maanta qofka shakhsiga imaanaya waa muhiim in la tuujiyo meelo badan laga eego midnimada iyo wadajirka iyo istiqraarka dalkana runtii lagu doorto dalkeenu wuxuu u baahan yahay in sidaas oo kale aynu u wada soconno maanta cid Soomaali ka maqan dhaqan iyo
aqoon-yahan iyo kulliba meesha waa wada fadhinaa noocyada bulshada aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa soo dhaweynayaa si gaaraan ugu mahadcelinayaa murashaxa waxaan leenahay waa ku garab taaganahay insha allahu tacaala fariintan la dirayna way tegaysaa ummadda aad khayr u tahay ilaahay inuu kuu sakhiro hadduuna khayr ku ahayn oodan ummadda khayr u ahayna ilaahay ha kaa manciyo ducadaa siyaasiyiintu waa neceb yihiin horta waa ducada ugu fiican intaa kadib waxaan idiin sheegayaa in dhaweyjaadii gabay jawaabteedii maansada waa ninkii iska joojiyey ninkii aan jeclaa iyo mar hadduu jabaan yimid jaraxeeda aan furo soomaaliya jirrabaley wax dhan baan jujuugnay jab iyo halaag iyo holac baan ku soo jirnay jeer dushaan ka furan baan ku jirnaa dhammaanteen jaarkaan afgood iyo jawhartana ma gaarno jidadkiina wada xiran xamar waad u jeedaan oo dhagaxbaa ku wada jaran hadba ninkaan jahayno jagadaa u dhiibnana isagaa jugaysta markuu jeerka buuxsaduu keligii la jeestaa dadkii oo jugin waay jawaabtaas ma beelba jaliilkiina untaa jabaal maanta keenay jacaylkiisa kuma iman soomaaliya jirrabaley joojiya wixii hore asagaa jahayno jidka fiican marino naga saari jiirtee jiilkeenna soo kacay ya war jamaalaan dooranno jawaabtaa ma yeesheen haadiinu waa yarta war jawaabtaa ma yeesheen afartan jideeyay jawaab kala aan raacay dalkeennaa la kala jabay jifa jifa loo kala degay jabadaa hargeysiyo muqdishadana joognu isu jiidi doonaa geesi jirana weeyaan joorada iyo muuqiyo jaahaad ka garataan geesi jiran inuu yahay war hadba kaan jahayno jagadaa u dhiibnana asagaa jugaysto markuu jeebka buuxsadu keligii la jeestaa dadkii oo jidii go-ay asagaa jahayno jiirtana naga saari jiirto jidka fiican mariniye war jamaalaan dooranno afartaa jaheeyaya jawaab kala aan raaciya jamaalow dhegayso jeerkaan ogeynee qarigeenni jabay iyo maantada aan joogno dadkii soo jiraynkaa jiitoo dhammaadoo aakhiray u jeesteen jir yar baa ka soo haro jabjab oo naafa ya afkii tuuga wada gabay dowladdeenna joogtana jir dhaxa ha joogtay nama soo jalleexaan jaliilkaan baryaynaa jagaduu ku geyniye jidka noo furmaano jidka noo furmaano soomaaliya jirrabaley joojiya wixii hore maanta labayna joogtaa naartii jaxiimiya jannadii ilaahay midun aanu joogsan labadaasay joogtaa war jamaalaan dooran isagaa jahaynoo jidka fiican mariniye intaas horta waa geeraarkaas yar jamaal baan kusoo dhaweynayaa waxaanse idiin sheegayaa dadkiina reer koonfureed oo waddanka midnaan marin anigu 2010 baan anigoo reer Ethiopia jigjiga jaad ka soo qaado waxaan soo maray Togwa Jaale Hargeysa Burco waa soo wareeg gooray tahay 11 saac oo maalmeed yaan markaan u soo jiray magaalada Buuhoodle in yar u soo jiro yaa waxa arka calanka Soomaaliya meel ka taagan anigu jaadka raaci baan ka nin reer Hargeysa gaari uu wada markaas waxaan macalankii baa ha jooji baa soo maxaa dhacay sana asalaam jooji soo nacalaadi calankaaga ku yaal gaarigu waa for nafsi saadu gaariga u dhaqaaqaa taayir horbood ilaahay baa iga sareeyay bow wa inna lagu qarxay bood nacalaadi gaarigaaga ku yaal baa la intay kadib markaas calankii salaam ya marka calankii salaam iska hor fariisto iska ooy ilaa waxay igu dambeysay 19 magaalada meesha Buuhoodle la yiraahdo ilaa hadda waa ka taagay calankii ma baantay calankii labaad oo aan arkana waxay igu xigay magaalada Gurceel la yiraahdo dalka inta dhan Gurceel baan weyn walaalayaal waxay doonaysaa ya maanta ninka biriishka isku xiri kara sool weeye biriishka horta dalkeen Cabdirasaaq wuxuu ku galay doorashadii hadda golaha wakiilada wuxuu ku galay gobolka Sool iyo Soomaaliland ana isku soo xiri kara taas lagu qaatay Soomaaliland iyo soo koonfurna waxa isu keeni kara waa Jamaal wallahi inta musharaxa iyo nin madaxweynaha kale isu keeni kara ninkan ba isu keeni kara
markuu isu keena aan ka qaadana haddaan rabne ilmaa real reer koonfur maanta aan doorana ninka dhagihiina fura markuu isu keeno oo dalka mideeyo la waa ka tira badan aan ka qaadane oo aanu sidii yayni ku kacday ilmaa real maanta jabaalan dooran suu dalka isugu keeno ya jabaalow mid baana kugula dardaarmaya gayi waxaynu joognaa guluf iyo colaad badan gayi waxaynu joognaa gaajo iyo oon iyo gabadana ku badan tahay gayi waxaynu joognaa guulihii abuurtay ku galladay nimcada gees walba ay taallo madaxan galayn iyo wabiyada gufaacada gidigeen inagu filan dadkiisaansan garanayn gayigeenna saasa ninkii geesi gelin lahaa guntiga u xidhan lahaa guryasama ku furi lahaa ya geesigaas weeye u gardaaja maanta oo xilka guudka u saara war intaa ma garatee hadda maanta inala gudboonta ninkii hasho ka luntay wuxuu yidhi raadkeeda ku daalay aan markay halkaa maraysa yaa yax yidhaahdo war jooga maanta inala gudboon tahay war maanta inala gudboon tahay xag waa reer waqooyi xag waa xagga dhan walba waa yahay war waa biriishkii dhankeennana waa ka go-aya biriishka xaggaasu ka xidhaya xaggaa waa ka xidhaya anaa idiin ruba somalilan xaggeeda waa ka xidhaya biriishkii haddii kii dhirkeenni waa go-an yahay asagaa dhisi doona ilmaada real nala qaata hadalkii waa badiyey iga raalli ahaada jamaalow waa ku soo dhaweynaynaa anigu xildhibaanna ma doorto oday suldaanna melihi xildhibaan ma soo qoro laakiin ilaahay waxaa jirta asagaa qahaare inuu kuu kahre midda kale soomaalay waalid baan idiin wadahay aniga bedel maxaa waalid idinku ah dir iyo daaroon digil iyo mirifliya hawiyo waalid baan idiina haddaad waalidkaa ku xasilona inkaar baa kugu dhacay علمدي نبأ من شيخنا الوالد بالدينا دينتا والد يقول دينتا والد كي يقول إلى قاعدة نكاس فرن حكم التاجيل هيبقى عايز يجربنا حل بالنا الصوص علو هذا عايز يجربنا ممكن الله إلى لنتر ورجع إلى قاعدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا شيء كوكتا مراعية كالدون مصابية كالدون له وهو ريو مرشح مدعويني مصر بشير حاج علي يجراتكو قف كسر عن السلام يا مجلس هي مصر عن السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنت هذا بدو حوالي أنا هو مصوبه سومالي وحرشة وجانك دور قلوب ومصيبة وأهاب جري وكم يتهاي إن اللي هذا بحر ولا على دورت وأي كم يتهاي محوها أما أهانجي أنا لديهن اللي هذا ويجي وحسن سمين يا هذا دورت وأي كم يتهاي إن لو دورته وحاسو بحين يا وكرر لو دورت ما كلامه ولا يسوى بكسون يا وهريبن ولا يسوى بكسون يا nin inta asagu masraxa yimaado la yidhaahdo waa qurbajoog waxaasaan qabanayaana waa yidhi laakiin muxuu soo qabtaan la dhihinna waa laga soo bogsoonayaayo qofka soomaaliga ah meel kastoo uu joogo wixii uu ka ahaabaa hadda la akriya jamaal waxaa ka sheekeeyey nin saaxiibkiisa oo aqoon dheer u leh laakiin runtii anuu kanu sheegay anu markaan inta imid horay maanan aqoon wejigiisa maanta igu hora inta ninkaasi ka sheegayna waan haystay inuu yahay oo ah inuu ahaa hogaamiye soomaalinimo wax ku hogaamiya hadday tahay meeshii uu joogay iyo bulshadii soomaaliyada ku noolay iyo hadday tahay gudaha soomaaliya iyo waxqabadkeeda iyo waxtarkeedaba inuu hogaamiye soomaaliya ah hogaankuna waa wax ilaahay qofka ku karaameeyo in xilka loo dhiibay inuu wax bartaan oo wax soo kordho laakiin haybadda hogaanimadu waa karaamo ilaahay bixiyo nin haybad hogaamiyenimo oo ilaahay bixiyey leh soomaalinimona ugu adeegay inuu yahay baan haysanay waxaan leenahay marka intaa lagu tixgeliyo hana lagu doorto aniguna kalsoonideyda waan siiyey soomaalida kalena waan kula talinayaa in qofku la yidhaahdo muxuu ahaa ninkii isagoo maanay u haysan soomaalinimo wax ku hogaamiyey hadday tahay horumarinta dalka iyo hadday tahay bulshadii soomaaliyadu uu kula noolaa qurbaha badbaadadooda iyo waxqabadkooda iyo isku dubnaashahoodaba haddii wax loo dhiibtana wuu astaahiyaa karaamadii ilaahay ku karaamiyey aan uga faa'iidaysanno codkeennana aan siino
iyo kalsoonideenna intaasaan ku talinaya anigu. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta wasiirada nafta siyaasiyiinta kuwa xildhibaanada siyaasiyiinta kamid dhammaan wada salaamaya haweenka sharafta leh waan salaamaya salaan kadib halkan waxaa loo yeelay in musharax madaxweyne bashiir xaaji cali la yidhaahdo in oo musharax madaxweyne uu yahay annagoo reer koonfur galbeed nahay shakhs ahaanteedii aqoon uma lihin laakiin faaladii la faaliyey intaan u soo oo taqaan faalisay ayaan muxuu ahaa ayaan qaadanaynaa annagoo reer koonfur aan nahay eeba baarooga ano ayaan dhahayna ru waaye nin musharaxa nagu jiro anaga kii oo haween idaarada usoo sharaxa ayaan garab siinaynaa isagana markii garab siino oo yacni codkeena u hela hadda soomaali markii la yidhaahdo maamulada hadda dhisan dadka ugu xildhibaan badan ayaan nahay anaga codka dadka laga rabo xoog badan anaga waay aqoon-yahankeena xildhibaankay sharafta leh dalaxa maasha allah walaalkay meesha fadhiyo yani og baaraka allahu fiikum ninka nooga hadlaa oo aad iyo aad meelaha uu nooga hadlo magacaas u hadla isaga ayaa u badnaa allah jazaakum allahu khayr jilmaalow ama bashiirow haddaad fadhido ay aqoonku malihi sidii hore loo sheegay dadka oo yani muxuu ahaa isbedel uu sheegay jaabkii anaa buuxsan bal doorta ilaahay ka ogaado sidii ugu faaliyey garaadkaada sheegay ama ninka saaxiibkaada sheegay ama intii oo ku taqaanashay ay ficnaantay kuu sheega lagaa helo odayaasha dhaqankana nimanka oo arrintan oo wax laga rabo ayaga ilaahay baa wax laga rabo laakiin ayagu waayo oo inay wax soo dumaan oo ninka soo maraa ay dhahaan ama ninkaas wada ninkaas doorta waan ku duceyna inaad ilaahday ulama qaaday ninka haddii marna doorta akhtiyaar u leeyahay ama madaxweyne usun haddii mar doorto marka dalka u qabtona asana akhtiyaar u leeyahay marka waxaan qabnaa insha allahu tacaala aan soo jeedinayaa in odayaasha dhaqanka sida ay loo raadinayo oo dadka aad ogtihiin in dadkaas haddii ilaahay kaa guuriyo la badbaadiyo ay laftoo meelaha aan dhibaato loo gaarsin waa kaa codsanaya odayaashaas wax kale uma joogaan ayaga ninkii ay soo qoraan ama qoraan dadka soo diyaaran unba u joogaan wax kale uma joogaan mushaar lama siin hortaada mushaar lama siin dejin lama siin odayaasha lama fikirin insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa in odayaasha ka fikirintooda insha allahu tacaala waana ku soo dhaweynayna anagu reer koonfur galbeed malaaqeena ayaa noo hadlay khayr alasiyo ayaga saan la qabnaa waan ku soo dhaweynaynaa laakiin dadka cadaaladii lagaa sheegay ha laga helo yaysa noqonan maanta waa hele bal dadkayga xaggiisa umadaga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxyaanka ilawey wax kale ma aha ugaas bedel ama wuxuu yidhi khayraasiye waalidkiina ahay waalidka anaa ka weyn runtiis waaye waalid waa isaga laakiin anaa ka weyn anaa sharaafa asiga daba socodkay waay maasha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi ilaahay ducada ashraafta inoo aqbalo kaftan baa meesha ka dhacay kaftankii iyo garnaqsigii uu inoo bilaabay region national Somali waxaan ahay ninka oo waxa ku hadlay magaca oo waberi waxaa isa dhaweysay Bashiir Xaaji Cali inaa madaxweyne noo dhigo maxaa كليني هنا شعب منها ودور الشعب أنا كوكو بشير حاج علي هنا مدحوين إنه نأخذ أنا كوكو يا كهبل عندنا أنا وحنا هاي نيكا أو فنانكا كوين waxaan igu weyne
دلس ها دلس إيو محمد محرر ما كي هوري فنانيتي هوري باكوغي لا والله هوري راتب اللوغيا waa ducaysa waa ducayni shacabka oo dhan Soomaaliya وسلامتين أنا أفتكر بكرين عدي لا ينادو مدة النسوقيني وحبة ساداليني سبدا بشير حاجة علي جمال ضلكنا وصحل بحو صوماليا ساكقول أقوياها ساتركين علمي قسد وسيئيو سامي كله عالم كير إنو يهي والا صحي سياسة معالي كذا أساقا سمعتي هوريو سو علينا يا هيبتي صوماليا هانجرتو سد يلعق عن ربينه عد كينا سيرينا سارينا مدحوينه سو كيه لك الدليو تدكي إسر سيجيبو سيدو كم ذيلها أسرع سر كدوم ياي صغير إذا الكبير شعبي قوي ساكعين وحي صدر واقعيان سلام مدحوينه هو إلا هو عراعينا يا إنت ناسو اسكو فكرة أو اسكو موقفة إلى هينا كعمو السيريا انت ناس هذا عناي waxaan ku duceeynaa inaan doorno Bashiir warkaasina uu laga daado idinka kuwa kale maama amaasantii alxamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam waxaan u malaynayaa hadalka waa la wada yidhi waxaan salaamayaa mar labaad garaad jaamaca garaad cali iyo ismiyada kale ee dhaqanka musharax madaxweynaha bashiir xaaji cali iyo qaybta dowladda aqoon-yahanada cid kasta oo masab kasta ay ku fadhido waxaan mar labaad ku salaamay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan doonayaa inaan soo koobo waayo dadku in badan buu fadhiyey waxaan u malaynayaa maanta waxaa jira fil jaaniskaasi marwaba sidaynu uga faa'iidaysana waktigii lixdii calanka la keenay waxaa keenay oo hormuud ka ahaa garaad cali waa ragga hormuudka ku ahaa ee calanka keenay inay ummadda Soomaaliyeed heer gaadho oo mid noqoto oo ay maamuuska garanayna ay yeelato raggii u sababta ahaa ka mid buu ahaa maantana waxaanu keennay musharax madaxweyne haddaan waagii calanka keenay hadda waxaan wadnaa madaxweynihii waxaan u malaynayaa halkaa jaalis baa ku jira ummadda Soomaaliyeed ee aan iminka halkii lagu soo koobi karin waaqayla ku sugan tahay laakiin waxaan leeyahay ilaahay hayna garansiiyo inaynu ka faa'iidaysano sababtoo ay tahay anigaan wax badan ka faahfaahinayn waynu wada fahmaynaa waa wada garanaynaa gobollada uu ka soo jeedo waa waqooyi gobollada waqooyi oo lagu xanto Soomaalidiin qolada koonfurta odhan jirtay hadda waxaa socdaa madaxweynihii waanu wadnaa mar haddaynu madaxweyne wadno waagii horena waa ogeedano calanka annagaa keennay waxaan leeyahay maanta waa free janiska aynu ka faa'iidaysano siday ismiyada hore sheegeen ee ragga hore sheegeen waxaan u malaynayaa in badan baa dee rag madaxweyneyaal la soo maray maanta hadduu janiskaasi jiro waxaan leeyahay qolada kale ee madaxweyneyaasha qaranka Soomaaliyeed soo maray iyo kuwa kale u taaganba fadlan looga sikada maanta jaanis baa sidnaa jaaniska iyagana waxbaa laga arkay haraa loo arkay waa lagu faa'iiday ummaddu heer bay ku gaadhay ma faahfaahinayo iminka waxaan leeyahay maanta halkaa jaanis baa jira jaaniska ummadda Soomaaliyeed ha ka faa'iidaysato waxaan leenahay ismiyadu meel kasta ay joogaan ama bahda dhaqanka ragga soo xulaya annaga iyo ragga kale aan axbaabta nahay waxaan leenahay marka xildhibaanada la soo xulayo ha lagula dardaarmo codkeenu iyo Jamaal Xaaji Cali
taa lagula dardaarmo taasaan farayaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa shirkan cid kastoo ka soo qayb gashay wasiirada iyo profeser dalxa rag hadal culis baa jooga waktiguna waa kooban yahay waxaan leenahay mar labaad iyo mar koobaad idinka codsanaynaa jamaal xaaji cali nolola soo saaro madaxweynaha jaanis ummadda soomaaliyeed oo dhan ayaa ku jira hawshaa hawasa loo eego yaan la ilduufin aad iyo aadna waydiin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iskale mar labaad maanta runtii waxay tahay maalin aad u qiimo badan sababtoo ah kollay anigu halkan siyaasadii midna uma imaan waxaan u imi shaksi aan aqaan oo meel aan ka wada nimi oo meeshaan marka aan sheegayo waa Canada macnaha ninka ka markhaati kacaya hadday deeq gargareeto xataa aan ku qabsan karo waa aniga marka jamaal runtii maaha markii u horreysay uu ummadda Soomaaliyeed siraa waxtar intii maamul goboleed la dhisayay iyo intii abaari jireen iyo intii cudurro jireen waxaan xusuustaa jamaal oo socda anuu Bashiir iyo Xaaji Cali jamaal baanu ka jecelahay aan u naqaanaa mar walba u istaagi jiray marka waxaan xusuustaa runtii haddaan nahay dadka qurbaha ku nool gaar ahaan Canada ku wada noolaan jirnay wuxuu ahaa hormood intii lagu sifeeyay runtii nin istaahilo weeyaan waa in waqtigiisa oo dhan Soomaali geliyay aanan u kala socnayn maanta runtii loo abaalguday mar haddii wejigan qurux badan oo Soomaali oo kala duwan oo qolo walba leh oo siyaasiyiin iyo ismo iyo culamo diin iyo qolo walba halkan ay soo istaageen ama xafladda ka soo qayb galeen marka waxaan leeyahay saacadan oo kale waa marka ugu adag tahay waa raggu nin walba wuxuu jecel yahay iyo gabdhahaba in maxay ahay warka la soo koobo oo waxa leeyahay waa waqtiga qadada marka anu waxaan warka ku soo koobaya anoo jeclaan aad u hadlo waxaan arkay mar haddii la soo talaabso dhinaca kale soo istaago waxaan warka soo koob jamaal waxaan ku leeyahay soo dhawow anu waxaan ahaa raggii markii dalka ay xagga ka soo tagayaan kollay waqti dhow baan ka soo tagayo waqtiguna wuxuu ahaa 2004 baan halkan ku soo biiray waaska on wax waqti aan saa u sii fogeyn baan 2004 dadka dambe oo hadda socda runtii jamaal wuxuu ahaa raggii markii anigu aan halkan imaanay raggii soo dhoofiyay oo soo diray dalkii balka wardoon buu ahaa marka jamaal oo dalkii aad noo soo dirteen oo taraaheen ka wardoon intaa waynu ku simeynay soo dhawaadaan in leenahay kaalintii lagaa rabayna runtii waa taagan tahay waa kugu soo dhaweynaynaa tan kale oo ku sii darsanaan waxay tahay jamaal ilaah baa wax baxsha aan kulligan hadda sidaan la jecelahay ilaahay ha la garto laakiin wax kasta oo bani aadamku labadaba in la saaraa fiican waxaan jeclaan lahaa jamaal wixii maanta ka dambeeya inuu dalka baaqi ku noqdo anoo og Edmonton iyo Canada inaanay iyo Ontario iyo Alberta intaba aanay ka maarmin waxa ka sii weyn Soomaali baa ka sii weyn marka waxaan leeyahay kaalinta aad u baxday weliga aad istijaalada u sameeysay marka waa talaabad hor u qaaday weeyaan anu inta quraan maanta la yahay waa soo dhaweynaya waa maxay ahayd aad baa loo hadlay nin baanu saaxiibnahay iyo bedel la yiraahdo abwaano halkan fadhiya aad buu taataabtay olada ragooygana mar walba waxa la yiraahaa xogaa tabasho badan baa jirta runtii waxaad moodaa inaanu jecel lahay bahashii wixii hadda ka dambeeya in bahasha hadda bal xisaabtamo oo la arko laakiin wixii naloo qiray oo way ahaan la yiri hal la siiyo kelmad baa mar laga daba tuuray ma qansi looga daba tuuray waxa la ahaa kale waxba ay dhiibeen la huwa ka qaadanayna waa ka fara badan waa waxa la isku haystay kamid tahay wax badan iyo wax yar laba garanayo waa waxa intii hore ku tagteen oo la tagteen marka bal haddaad wax bixinaysaan badnaashaha iyo reeba oo ogolaada wixii israacsada intaasna waxa iga tahay xoogaa kaftanka raacsanaya maanta haddii garaadku joogo garajaamac waxaan leeyahay kelmadiisii waa yiri dee kulligeen halkaas ay nooga dhantahay kelmad kale waan ka daba oranaynaa ma jirto laakiin
kelmadda laga caddeeyey oo meesha jirta waxay tahay dhagaha aan furno Soomaaliya haddii la rabo in maxay ahayd la isku hayana waxaa jira dad deegaankaas wada degan oo ilaa maalintii wax la sheegayay ha noqdeen ilaa iyo muxuu ahaa deegaan walba oo Ceergaabo ha noqoto Buuhoodle ha noqoto Laascaanood waxay u baahan tahay waxtarkoodu waa wax Soomaalida isku haya laakiin inta badan waxaad moodaa markii xafladahan la isku yimaado baa la hadal haya laakiin markii wax la qaybsanayo waa yar tahay sababta ku yartahay waxa weeyaan madaxweyne hadday noqoto hadday ra'iisul wasaare noqoto hadday noqoto taliyaal ciidan hadday noqoto wax kasta ay noqoto aniga in la hadlayo waxa la xisaabiyaa inaan koonfur ahay oo aan intaa ka soo jeedo laakiin waxay u baahan tahay baashi dib haddii wax la isku ogol yahay si ummadda kale maqana loo qanacsiyo inaynu kulligeen wixii yaalla halka aan dhexda dhigano ragga la filayo inay wax ka qabtaana waa Jamaal iyo rag lamid ah anigu waxaan ku soo koobayaa maadaama saacad dambe loo dhiibay rag badan oo jecelahay inay hadlaan waa jireenoo nin la yara xareedo halka dambe fadhiya oo aan filayo inuu meel badan matalayo sababta rag badan oo sida Jamaal oo kale senator rag raadsaday iyo xildhibaano ayaa inala fadhiya oo codkooduna fiicnaa inay ugu soo gudbiyaan marka haddaan siyaasiyiinta nahay inagu wixii abwaanimadeeda iyo sheekadeeda iyo kaftankeeda iyo koonfur iyo waqooyi intaba talxaan u daynaynaa isaga naga wakiila isagaan leenahay talxow waxbaha u reebay maanta wixii ilaahay ku baray maanta halkaasaan kugu ognahay waxaan leeyahay Jamaal soo dhawow dadka ka timi oo Edmonton joogay oo rag fara badan oo ka garanay Cawil iyo maanta waa ku wada daawanayaan waxay leeyihiin ninkii Jamaal ahaa ma yahay ninkaan dirsanay waxaan leenahay dadkii soo dirsado waa in ka gudaynay waana haynaa meeshii aad la rabteen insha Allah anagu ilaahay u baryaanana waa la gaarsiin doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii maanta arrin cajaa'ib weeye waxaan salaam u soo jeedinayaa dadka halkan maanta lagu martiqaaday ee rag iyo dumarba leh halkaa rag badan baa hortayda ka hadlay gabdhaha ma aysan sheegin gabdhuhuna mudnaan weyn bay leeyihiin Soomaaliya marka maanta la eego rag iyo dumarba halkan waa loo fadhiyaa raggii soo martiqaadayna runtii ammaan baan u soo jeedinayaa abaabulka intaa la eg sameeyey oo dadkaas oo dhaqankii iyo siyaasiyiintii iyo gabdhihii iyo wixii oo dhan ay u dhan yihiin inta soo abaabulay maanta arrintaa isugu keenay salaam baan u soo jeedinayaa waxaan kaloo salaam u soo jeedinayaa runtii musharaxa madaxweynaha oo dadkiisii shacabka ahaa waxgaradkoodii iyo waxoodii intuu abaabushay arrintiisa u soo bandhigaya isagana salaam baan u soo jeedinayaa dhammaan waxaan leeyahay marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii aniga waxbaan dareensanahay dadka iyaga halkaa joogaa ma ogi hadda qof iyo laba ka soo bixi doonaa ma aanu ihin xildhibaano ma nihin aqal sare waxaanu nahay odayiin iyo siyaasiyiin daashay iyo odayaal baanu nahay marka dadkii wax dooranayay ma aanu nihin anigu runtii ra'yigayaga inaanu ku gudbino oo inaanu anagu raalli kaa nahay aanu caddayno waa arrin muhiima adna waxa kuu tarto dadka shacabka oo Soomaaliyeed oo dhamaqlahayaan ha dhageysteen laakiin waxaan rabaa inaan arrin marka hadda Soomaaliya laga hadlayo waxyaabaha soo baxay dibaddana waad u badnayd gudahana waad joogtay inaan tilmaan yar bixiyo Soomaaliya hadda waxaa lagu qiimeeyaa garasho ku xisaabtankii waa ka dhumay maqal ku xisaabtankiina waa ka dhumay arag ku xisaabtankiina waa ka dhumay waxa u soo haray qabiil iyo lacag waxa mabda ah oo kale oo nin Soomaali oo maanta jooga siyaasi ha noqdo magaciisa ha noqdo waxa lagu shaqeynay waxay noqotay qabiil iyo lacag waana wax laga dhaqaaqo waaye weeye inaad intaas adigu aad sii ogaataan arrin muhiim weeye qabiil iyo lacag waa waxa la isugu imaan waayay waa hagaagi waayeen arrintaas meesha ku soo hartay xigmad kale oo maanta taala Soomaaliya ma ay jirto waxba qiyaas ku shaqeynaya waxa la yiraahdo la sameeyo ahsaab si loo galo tartan xor 106 bay gaareen dal hawo iyo tiradooda intay gaareen 106 xisbi dal inta leeg inta inay gaaraan waxa keenaya qabiil baa loo fakaraya nin walba reerkiisii yuusu taagaya leeyahay xisbi baa sameynaya hadda maanta waxay maraysaa musharaxiinta madaxweynuhu
shan iyo labaatan baa mise lix iyo labaatan inta ay marayaan bay maraysaa waxyaabaha adduunku marka ku dhaqmo iyo loojikada jirta Soomaaliya way ka baxday dhaqan kale taagan tahay annaga waxaan leenahay runtii waxyaabo waxa jira ninku markuu dhameeyo shuruudda ku qoran dastuurka dalka ee ku meel gaarka ah markaasuu musharax madaxweyne yahay inta ka horeysa waa tilmaan shuruuduhu waa qoran yihiin shuruudaha waxaa la soo marsiinayaa guddiga doorashada qaranka markay shuruudaha ansixiyaan ayaa musharaxa kaar la siiyaa la yiraahdaa madaxweyne musharax ninkaas ah hadda waxaa jira 5 bilood ka hor dad sawiradoodii iyo waxoodii meel walba ku dhagan yihiin musharaxiin ah mana marin systemkii sharciga lama marinin annagu waxaanu dhahay raggii waxaan ku jiray aeroboortka kugu soo dhaweeyey ragga haatan maanta halka joogana waa ku jiraa qalbi wanaagsan baan ku haynaa dambi inaad gashay oo dalka Soomaaliya ka gashay kuma hayno inaad wax garanayn kuma hayno inaad Soomaalinimada neceb tahay kuma hayno ilaa qofka waxa lagu dooranayaa waxay tahay in la qiimeeyo marka la qiimeeyo dadku dooranaya annagu intaas midna kuma hayno marka waxaan kugu soo dhaweynaynaa xaq baad u leedahay waad mudan tahay inaad isu soo taagto u tartanto madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed xukunkana Ilaahay baa iska leh qof bini'aadan go'aan ma qaadan karo Ilaahay baa xukunka iska leh dadka Soomaaliyeed haatan maantayto in la soo doorto la sugayo walwal baaba naga haya si loo soo dooran lahaa walwal naga haya runtii markay tahay laakiin dadka Soomaaliyeed in la soo doorto laga rabana inay aqli noocaas dadka ku soo xushaan ama ku soo sameeyaan oo iska daayaan lacag iyo qabiil ayagana intaas aan u soo jeedinaynaa adigana Ilaaha ku guuleeyo wixii xunna Allah ka faydo wixii xalaalana Allah kugu aadiyo intaas aan leenahay assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh gabdhaha iyo saxaafadda dhamaantiin assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh runtii war badan ma harin warkan nuxurkiisii waa la sheegay mudane musharax madaxweyne waxa leeyahay mushaacadu marxaati way gashaa intii ku taqiinay haday amaan iyo wanaag kugu tilmaantay annaguna waa ku gowracanahay waana la qaadanaynaa aniga magacaaga iyo muuqaaga mar hore waxa ay baray ninka la yiraahdo deeq gargareeto adigoon ka imaan Canada asay laftiisu markaas Canada uu joogay inaad musharax tahay soo socdana waan ka warhayay laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego anu kulay hadda reer galmudug baa matalaya galmudug maanta anaa magacooda ku hadlaya han baan nagu jira kursiga madaxweynaha ah waxba kuu dhiimayna waa iskaashanaynaa haddii ilaahay halkaas ayaa noo ballanaa iyo iskaashi waad mudan tahay reer Sool iyo Sanaag iyo Cayn halganka Soomaalida magac weyn bay ku leeyihiin waxaan rajaynaynaa Soomaaliya meesha ay maanta marayso hadaad ku guuleysatid magacii iyo taariikhdii mahadada ahayd ee wayaasha ay reebeen inaad mid lamid ah adiguna sameyn doontid anoo waqtiga ku xisaabtamaya soo dhawow mudane musharax waan isgarabsanaynaa haddii Ilaahay idmo Soomaaliya waxay u baahan tahay gacan midaysan iyo niyad midaysan iyo daacadnimo waxa kale oo noo ballana intii hore aan soo tijaabinay inaan dib ugu laabanay wajiyo cusub aan doorano assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh dhammaan madaxda hogaamiye dhaqameedyada oo runtii garaad jaamac iyo inta sidaas oo kale matalaada guud ahaan beelaha Soomaaliyeed hoggaankoodii ah dhaqan ahaan sidaas oo kale guud ahaan siyaasiyiinta ka soo kala jeeda golayaasha dawladda aqalka sare golaha shacabka iyo xukuumadda guud ahaan siyaasiyiinta sidaas oo kale maamul goboleedyada kala duwan ee dalka ee munaasabadan qiimaha leh soo sharaftay sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan aqoonyahanada ganacsatada culimaa diinka haweenweynaha quruxda badan gabdhaha dhalinyarada bahda saxaafadda iyo
ciidamada qalabka sida iyo amniga hoteelka saxafi ee hoteelada xaqiiqatan ugu mudnaanta badan marka loo fiiriyo waxgalka iyo waxqabadka ka sokow ee uu caanka ku yahay balse aan ku xusuusanayno inuu ka mid yahay hoteeladii farakotiriska ahaa ee u dhabar adeegay intii dowladnimada baadigoobka loogu jiray ayna ahayd meelaha ay ku soo hiirato dowladdii timaado waan ku ammaanaynaa marxuumkii qiimaha lahaa cabdirashiidne isaga iyo intii kale ehel ahayd ama hoteelkan ka tirsaneed ee ay ku geeriyoodeen dhacdooyinkii murugada lahaa ee hadda maalin meel kaabanaysay ilaahayse waxaan uga rajaynaynaa isaga iyo intii la midka ahaa inuu jannadii firdowska ahayd uu ka waraabiyo sidaa awgeed ii oggolaada inaan salaamta islaamka marka hore idin idhaahdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka xiga waxaan bogaadinayaa munaasabadan qiimaha leh oo maanta aan uga soo wada qayb galnay dhammaan murashax madaxweyne mustaqbalka u taagan walaalkeenna bashiir oo runtii qof waliba siduu u yaqaan iyo CV-giisaba ay dhagaha maanta ama ha ugu shubaano xiriirinta qaybtii ama in horey u taqaanay xaqiiqatan waxaa la qaybsanayaa macrifada qaar ay u leeyihiin dadka saaxiibyadiisii ahaa ama kuwa jid la maray ha noqdaano ama kuwa jabad la xariir ha noqdaano laakiin aniga bahda waxbarashada ayaan saaxiib wadaag ka ahayn waxaana iyagoo jooga aan dalkaba dibaddiisa imaan xiriir uu ila sameeyey saaxiibkayga axmed ducaale oo runtii kolligayga kuliyaddii afafka ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed inuu la soo runtii guurayo nin culus oo saaxiib waxbarasho oo asagana ka mid ahaa bahdii xilligaas 80meeyadii afartiiba aniga ka qalin jebiyay asigana 7dii laakiin rag aad wada garanaysaan ayaan isku wada tariinka waxbarasho saarnayn oo hadda qaarkood aad garan kartaan Yuusuf Garaad iyo Xarbi Cali Kulane kuliyadaas oo luqadaha iyo handasadaba kuwa inta fara badan aad moodid siyaasadda bariyahan inay ayaga ku badan yihiin marka loo fiiriyo murashaxa madaxweyne waxaan u malaynayaa in ra'iisul wasaaraha xukuumaddeena federaalka mudane maxamed xuseen rooble inay isla yihiin bahdii injineeriya ama kuliyadii handasa ama kuliyadii marka xaqiiqatan sharaf bay noo tahay bahdii aqoonta iyo dadkii waddanka wax u soo bartay inay dib ugu soo laabtaan ayagoo hamigooda u yahay inay wax ka bedelaan wadciga aan ku sugannahay ee maanta Soomaaliya u baahan in wax laga bedelo xaqiiqatan isbedelku dadba sibay u yaqaanaan isbedel qof lagu bedelo ma aha ama nin ama gabar ama haween waayo haddii cali uu baxo oo cabdi uu yimaado iyo hadday caasho baxdo cambara ay timaado magacyo unbaa isbedelay laakiin wadciga iyo xaqiiqada ee ay tabayaan dadka Soomaaliyeed systemka jira iyo xaaladda dalka uu ku jiro yaa wax ka bedeli kara yaa wax ka qaban kara Soomaaliya tabasho fara badan baa jirta garnaqsiga odayaasha ayaa daliil u ah walaalihii halkan soo istaagay Somaliland tabashadeeda waa mid garowshiya leh ee halkan Suldaan Xaamid iyo raggii uu maanta uu ka soo jeedo murashaxa madaxweynaha iyo garaad jaamac iyo raggiisii kulli waxa ay maanta ay ku hadlayaan tabashadooda waa wax jira Soomaaliya 60kii ayaa dhibaatadii ka timid ayaa maantada weli ayada ay taagan tahay alifka xumaada maxaa la yiri البخرة أيو كورير أما ألف كورير البخر كحمادا
haddii lixdankii gobonnimada markii la qaatay ee ay noqon lahayd mid cadaalad ku dhisan mid Soomaaliya oo dhan noqota wixii dadkii soo halgamay wixii ay ka mudan tahay qof waliba inuu meeshiisii yani inuu gobonnimadaasi iyo midnimadaasi lagu dhaqo sidan maanta lama noqdeen laakiin waxyaabihii dhacay wax cajiib bay ahayd sida wax loo qaybsaday awood qaybsiga siyaasad ha noqoto bulsho ha noqoto dhaqaale ha noqoto amni ha noqoto aad bay runtii u qaabdarnayd sababtoo ah magaaladan hadda ee cabashadeeda ee banaadir ee caasimadu ay tahay go'ashay taariikhdeedii hore maanta haddii dib loogu soo celiyo labada meelood ee hadda fariin gadaal laga soo dhiibay oo haddii la yiri Somaliland way garnaqsatay galmudugna way garnaqsatay bal koonfur galbeed iyo banaadir dalxow ka dabagay niman saaxiibayda gadaal fadhiya ayaa dhigta waxay ugu soo shubay sababtoo ah waxay yiraahdeen niman geesiyaal ah ayaa la tilmaamay oo xaqiiqatan aan ku taageersannahay Cabdullaahi Ciise geesi Soomaaliyeed SYL halgama weyn buu ahaa raggii Soomaaliland laga wada xusay kulli waxay ahaayeen the pioneers of this country dadkii oo waxay u ahaayeen geesiyaashii la soo diray Talyaanigii ama Ingiriiskii wax weyn dowrkoodii muuqda koonfur galbeed reer awkay way baadayeen Mayjayland Abdulqaadir Sheekh Sakhauddin gudoomiyihii SYL Khaliif Huudow Macallin Abdulla Saalax xubin SYL Hay Barbe xubin Khaliif Huudow iyo Sakhauddin reer Shabeellaha hoose isla haayeen Barbana buur ha ka wahay dheer xaaji dheer oo reer banaadir hay may dadkun in maylin hilmaamay sedsho oo ka ilaaliyay marka waxa waaye dulmiga waa la camimay dalka marka maadaama raggii reer Shabeellaha hoose ee ka buuxay SYL ilaa ayaga kuwii banaadir ku jiray ilaahay idinku dhaarshay maanta marumaysanaysaan Cabdiqaadir Sheekh Sakhauddin ee gudoomiyihii SYL ahaa caruurtiisoo baagamundo wada ah cadilan xamar jajab bay ku nool yihiin cadaalad darro ka jirto 15 Mayne feesto iyo kharash waxaan ku bixinaa waxaan la qiyaasi karin dheer xaaji dheer iyo Cabdiqaadir Sakhauddin wiil uu dhalay gacanta uu ka go'an yahay ayaa munaasabad sidaan oo kale annagoo fadhino ayaa xataa microphone-ka lagu xusin oo la dhihi waayay gamiyaashii caruurtoodana la isu dulqaato wadan min alif ilaa ya khariban baan ku jirnaa oo cadaalad darro dilootay nin laashan ah oo reer afgooya u martiyay reer kale oo ehel ay yihiin reerkii lo'da oo xiran moorada way buuxdaa caanaha lo'da oo dhayda ah ayaa haamanka ku jirjira markaasaa markuu u martiyey ayaa waxaa la yidhi laashinka ha loo geeyo caano meeshii caanihii dhayda loogu geyn lahaa garoor ha loo geeyo oo dhannaan ah baashi markii hortiisa lasoo dhigay kore u qaaday waa dhigay waa qaaday waa dhigay markii dambe wuxuu isku dayay inuu ka bado laakiin waa ka daadegi weyn wuxuu yiri kaalaya reerkii dadkii eelka ahaa buu u yeeri wuxuu yiri aniga waan iiga dhaaran lahaa laakiin dhalyaan dhabiila waan iiga dhaaran lahaa dhalyaan dhabiila dhaayaaba taale maxaa dhanaanka laysiiyo ku dhaashay dalkan wada dhayda ah haddii la isla wada dhamo maxaa diiday maxaa qaarna dhanaanka loogu daldalaa qaarna dhayda u cabay
marka saaxiibkayga murashax madaxweyne bashiir CV-ga nin kastoo dhegaystina waa ku qanceen nin kastoo ku yaqiinana waa ku qanceen aniga laftirkayga maanta imaatinka gocashada gobolada Sanaag bari kulli iyo dhammaan iyo waqooyi raggii ka yimid halkan Somaliland ay meesha fadhiyaan in meesha gocashada aan imaanayso inaysan meesha ka maqnayn waa laakiin saaxiibtinimo waxbarasho iyo xildhibaan meel iska dhig laakiin guddiga wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland anoo ka mid ah ayaan balgar naqsigan odayaasha inay reference marjaci noqoto inaan dhageystana waxay ahayd waxaan maanta danaynayo walaalihii gardara tirsanayo walaalihii xumaan tirsanayo kullayba garowshiyo waxaan filayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa hadda xilligan noogu protocol haddii aan nahay dowladda federaalka mar hadduu meel fagaara oo asigan uu ka yiri walaalaheena waqooyi gocasho iyo wixii ay tabanayaan waxaan ka bixinaynaa xaalkartiya marka annaga reer danaan cababa iska noqonay annagana xaalka waa ku jirnaa laakiin madaxweynow hoos u sii daadeg ninkaa maartay gadaashaada fadhiyo asiga tii ugu dambeeyay fariintiisaan kuu soo gudbinayaaye Soomaaliya waxay isloogan ahaan maanta meel u yaallaa saaxiibkayga laacibka Saciid Dorsheelna waa joogaa madax guddi qaranna waa yahay waxaa meel noo taalo xaq lama rabee xalaal la rabaa marka xaq darro xal lagu raadinayo adigana sidii aad ra'yigaaga arintaas ama u diidi lahayd ama ugu raaci lahayd islaamka ee madaxweynayaasheenni isdaba galay ay ku soo shaqaynayeen ayaan sugaynaa meel xaq darro taal halka lagu raadinay aniga jawaab uma heli karin wassalaamu calaykum ku soo dhawow murashax madaxweyne darajada ilaaha bixiyo ummadaadan waa ku jeceshahay in allaha jamiilun yuhibbul jamaal ku soo dhawow bahda dhaqanka oo ugu horeeyo garaad jaamac garaad cali iyo dhammaan cuqaasha salaadiinta malaaqiyada gobolada mar labaad waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib ugu horeyn ilaah baa mahad wax la wadaagi karaa ilaahay ma jiraan mar labaad waxaan u mahad celinayaa dhammaan guddigii soo qabanqaabiyey xafladan quruxda badan ayaan ku shaacinayay musharaxnimadayda dalka Soomaaliya oo ay ugu horeeyaan Cabdikariim Haybe iyo saaxiibkay deeq gargarato yaan u naqaanay anagu aadan warsame cilmi marka la yidhaaho ma garano laakiin deeq gargarato marka la yidhaaho waa waxaana galaa iyo dhammaan tiimka ila socday iyo kuwa halkan iga soo horeeyey iyo dhammaan dadka soo sharfay xafladda quruxda badan waxaan kaloo mahad gaara u celinayaa hotel saxaafi oo runtii halkan ay noogu horeyn sida ugu taagan yahay astaanta qaranka ummadda Soomaaliyeed oo lagu soo hirto mid ka yimi ilaa Raas Casayr ilaa Raas Kaambooni xamar marka la soo aadayo waxaa la yidhaha saxaafi ma ku degti marka waxaa xusi doonta taariikhda muhiimadda uu leeyahay dalka iyo dadka Soomaaliyeed hotelkan maanta joogno inta haddaan ka gudbo in muddaa la fadhiyey wax laala wixii la sheegi lahaa ee xigmad ahaa waa la sheegay marka anigu hadda inaan ku tunto ma rabo waxaan doonayaa inaan si kooban oo aan ka badnayn 5 daqiiqo ama 10 daqiiqo kusoo koobo dalka wixii aan ku hogaamin lahaa haddii ilaahay ii idmo inaan madaxweyne ka noqdo way qoran yihiin iyaga oo maaragtay tafaatiran oo luqado badan ku qoran waan soo diyaariyey halkan dhabarkayga waxaa ka muuqda 5 qodob oo bandhig oo ah siyaasadayda aan dalka ku hogaami doono haddii ilaahay ka dhigo number 1
siyaasadda aan dalka ku hogaamin doono marka hore waa mid daafuran oo la wada leeyahay oo sidan hadda aynu u wada fadhino loo leeyahay oo aan cidna laga lahayn ma noqon doonto siyaasad inta sidii odayaashii iga horreeyey ay sheegeen inaan halkan intaan ka urursado awooddii dalka inaan markaa filla Soomaaliya intaan la galo saan doono markaa ka yeelo ma dhici doonto taas kow marka anigu muddo aan ka shaqaynaya arrimaha bulshada center baan fadhiyey dadka Soomaaliyeed meel kasta ka joogaan way iimanayeen nooc kasta Allah ka dhigay Djibouti NFD gobolka Soomaali galbeed iyo jamhuuriyadda inteeda kale way iimanayeen ama waraaqo u qoro aqoonsiga ama tireenna aan siiyo iyo tababaro dadka Soomaaliyeed waa u fiirsaday dadka Soomaaliyeed waa dad walaalo ah waxay ku kala duwan yihiin ma jirto waa isku mid waa hal qoys oo tarmay taas ayaa ay soo baxday igu dhiirigelisay inaan maanta isu taago hogaankooda inaan noqdo waxyaalaha Soomaalidu ay leedahay aysan la wadaagin ummadda kale waxaa la mid ah waa dad isku mida marka hore oo isku dhaqan oo isku diina dalkan anigu hadda aan ku noolahay ee Canada intaa midna ma wadaagaan waana dalka adduunka ugu dawlad wadaaga wanaagsan weeye innaga oo hal dal ah oo hal dad ah oo hal jinsiyada oo maanta inteena salka fadhida aynu wax soo noqonayno inaynu maanta leena kala waardiyeeyo oo halkan ay inoo fadhiistaan dad aan inagu diinahayn oo inagu dhaqanahayn inay kala celiyaan nasiib darrada adduunka ka mid ah baan u soo joognay inagu iyo ka mid ilaahay wax ka baraynaa inuu arrinkaa inaga soo furto dadku waa isdilaan Soomaalidu waa isdishaa waa kala irdhoobaan yaa heshiisiye dadka Soomaaliyeed iyaga heshiiya dad islaamana heshiisiye ma aragan adduunka dad islaam oo gaal heshiisiinayso dadka marka la heshiisiinayo waxa la yiraahdaa wareeraha ka baqo niman ilaahay oo garanay bahalka fadhiya si uu heshiinayna marka waxaan rabaa marka arrinkaa dib u heshiisiinta ee ugu horreysa qodobkaygu waa muhiim Soomaalidu hadday heshiiso Amazon uma baahnaan doono Maraykan u baahnaan mayno reer Yurub u baahnaan mayno haddaynu heshiino oo si dhib u heshiino waynu naqaanaa 10 sannadood 5 sannadood 3 sannadood 4 sannadood ee qofku uu hayo xukunka ka badan Soomaaliya heshiis horeynu soo aragnay 1969 markii dawladda gacanku ay qabsatay dalka ilaa 1977 toddobadaa sannadood isku filaansho dalku gaaray markuu gaaray kadib iska dalka gudihiisa waa taad weeyeen waynaga harar garaacin ilaa harar intii kale la xoreeyay watay noo suurooday waa 7 sannadood gudahood maanta inagoo intii ka tacliin badan ka xoolo badan ka badan oo tiknoolajiyadu si walba isku bedeshay in maanta halkan inta laynoo soo fadhiisto la yidhaahdo Soomaaliya ma heshii karto waa dal filigaroobay oo nolosha ka dhacay waa nasiib dar marka sidaas ay u kaliftay kelmadda dib u heshiisiin dadku waxay qaataan wax fudud oo inta hoolkan oo kale dadka lagu soo xereeyo la yidhaahdo heshiiya macnaheedu saama waa dib u heshiisiin dab awey oo waxba ka dambeeya laakiin gobolka kacma waxa ku xigta waa dib u dejin haddii la heshiiyo dadku way isu soo loobayaan waa la isu furmayaa bay'u mushtarka isu furmaya siyaasadda isu furmaysa dhaqanka isu furmaya hadda intii yaray ee dalkan caasimadu ay nabadgelyada qaadatay waa ogtihiin inteenaas waxaynu ku kala dhimaa adduunka oo dhan anigu 30 sannadood ugu dambeeyey maynan muqdisho maynan hadda sababta ugu soo dhiirtay waxaa ka mid ah waxaa iiga muuqda ifafaalihii caasimadda beriga aan ka tagay ay ahayd baa iiga muuqda hadda markaan dib u heshiisiinta dib u dejintu waxay keentaa dhaqaalaha kobca arrimaha bulshada oo kobca dadka oo isu socda magaalada waan kusoo wareegay haarihii way ka muuqdaan civil war ama dagaalkii sokaya way ka muuqdaan laakiin waan ka soo kabaynaa insha allah dowlad wadaag ayaa ku xigo qodobka saddexaad dowladda waxaa loo dhistaa in la wadaago xukunka
iyo dhaqaalaha ama resource wax la yidhaahdo labada haddii la waayo waa la isdilaya waa lagu kala tegaya waxyaalaha soomaaliya dowladda soomaaliya dumiyey ay ka mid tahay kuwa adduunka inta isdilayeen waxyaalaha dumiya labadaasaa budhigu ah dadku markay wax ku heshiiyaan waxay ku heshiiyaan waa inay si cadaalada u qaybsadaan oo ku heshiiyaan hadda waa la qabtado annaga xagga waqooyiga waxaa la yidhi tabashaa ka jirta fara badan dee wax cadoo tabasho maayo waa wax xaqaaqoo yaallo weeye ilaa 1960 ilaa hadda mar macalfan maxamed allah naxariista maxamed xaaji ibraahim cigaal cali khaliifna sanadkii waayey dirqi buu ku fadhiiba ka kacab sidii loo hayay marka dambe isagoo New York joogo oo maaragtay shirka qaybgeliyay weliba ummadda Soomaaliyeed yaa halkaa maaragtay leeyahay anagu soo noqon marka taa waa ku xisaabtamaynaa sidii hore manihin باي دقاي ووضعنا مركز هذا حساب ده أيام الديار بيننا حساب وحال كل حاجة واحد وهي ودنيا البلش هدي ليشيو أو دب لسقوط النقطة ده تقوليه دي قصة النقطان أو الدولة اللي ولا رو بالشدة الدنيا كله يضع إيمان إنسان وحكوك أنا بتقليه هذه اللي هو بالشدة arrimaha bulshada wax walba way soo dhawaanayeen tayeynta waxbarashada caafimaadka infrastructureska ama waxyaalaha la yidhaha kaabayaasha dhaqaalaha wax waliba way kobcayeen marka taas laftigeedu iyaduna bulshada halkaas ku jirtaa ugu dambeyn waxaa imanaysa in dalku midoobo oo laga baxo waxyaalahan qoqobka ah ee maaragtay la leeyahay qole hebla goosatay iyo halkan ay ka baxday iyo insha allah anigu waxaanu taagnahay midnimada ummadda Soomaaliyeed dowladda waqooyi baan ka yimi oo ogtiin maamulka Soomaaliland uu maqan yahay maamulka Soomaaliland waxa weeye ma qabo in soddonkii sanadood ugu dambeysay dariiqii loo mari lahaa wadahadalkooda in dowladihii igu horreeyey inay mareen oo malaynayo anigu haddii ilaahay igu guuleeyo si fudud oo aan dhaqaalo badan ku bixin aan dibadaha la isla tegin oo aan lagu kala kicin si fudud baan ku keenayaa dowladda waqooyi midna waa ballan ummadda Soomaaliyeed inaysan weligeed kala tegin baan ballan ku qaadaynaa haddaanu nahay gobollada waqooyi inta midnimada jecel taasaa ballanno ugu dambayn waqti badan baad fadhideen waqti badan wada qaadan doonaa aad baan uga xumaayay inaad maaragtay ilaa 3 saacadood wax ka wada fadhidaan oo aad aniga dartay u fadhidaan aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad idinka mahadcelinayaa fadhiyo badan oo kala duwan waan qaadanaynaa insha Allah hadii Allah ka dhigo waxaan ka codsanayaa malaaqyada iyo maadaama ay tahay doorashada mid dadban oo one man one vote ay ahayn inaad igu taageertaan inaan qabto xilka madaxweyne ee sanadka soo socda kaas oo wax badan soo afjari doonta 80% tabashada laga taban gobolada waqooyi taban yaan soo xiri doonta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته